بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال ومهدي عمر شيخ وأدو تقانان مهدي مختل waxay ahayd 16 bishii February markii ugu horeysay ee aan shaaciyay inaan u tartamayo murashaxnimada golaha wakiilada ee Soomaaliland hase yeeshee muddo aad uga fog waqtiga ayaan ku hamiyay inaan booskan u tartamo waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadweynihii faraha badnaa ee igu dhiirigeliyay inaan hawsha galo walaalayaal muddo aad u fara badan ayaa waxaan baranayay cilmiga maamulka siyaasadda xiriirka caalamiga ah dhaqaalaha iyo diinta waxa imika la gaaray waqtigii aqoontii aan bartay aan ugu adeegi lahaa dalkayga dadkayga iyo diintayda waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ii fududeeyo hawshaas walaal waxaan ogahay mas'uuliyadda culus ee uu leeyahay xilkan aan u tartamaya waa mas'uuliyad culus guud ahaan marka dalka la eego waxa kale oo mas'uuliyad culus ah marka la eego gobolka aan ka tartamayo oo ah gobolka Awdal gobolkan Awdal aan ka tartamaya wuxuu leeyahay taariikh mug weyn xadaarad aad u weyn sidaa daraadeed qofka u tartamayaa waa inuu garowsado qiimaha ay leedahay inaad u tartanto gobolkan waxyaabaha taariikhiga ee gobolkani gaarka u leeyahay ee ay tahay inaan ilaalino aan xasuusnaano oo aan qirno waxa kamid ah waxyaabahan soo socda walaalayaal gobolkani waa halkii ay ka bilaabantay boqortooyadii Awdal ama Cadal sa ay dadka qaar u yaqaanaan boqortooyadaas oo ka talin jirtay geeskan Afrika muddo aad u dheer waa boqortooyadii uu hogaaminayay halyeygii Axmed Guray iyo Sacdadiin boqortooyadaas oo jabisay Amxaarada isla markaana u babac dhigtay duulaankii Boortaqiiska waxa kale oo jirto taariikh weyn oo gobolkani leeyahay inuu gobolkani ahaa gobolkii ugu horeeyay ee asxaabadii nabigu ay soo caga dhigtaan radiyallahu anhum ajmaciin iyagoo ka soo degay saylac ka soo degay markii ay hijroonayeen hijradii koowaad waa taariikh gaar ah oo sharaf weyn oo ah oo aanay jirin gobol kale oo inala wadaaga Afrika oo dhanna aan kaga duwanahay waxa kale oo aan dareensanahay culimo aad u fara badan oo qiimo iyo qaaya leh oo gobolkan ka soo baxay oo islaamnimada iyo culumta diinta gaarsiiyay geeska Afrika iyo dhulka Soomaalida dhamaantood culimada lama sheegi karo tiradooda aad bay u badan tahay hase yeeshee waxaan si gaar ah u xusayaa macallinkaani quraanka ii dhigay Ciise Ibraahim Cismaan Guuleed iyo sheekhaygii kale tarbiyada iyo tafsiirka ii dhigay Sheekh Xasan Ibraahim Wadaad Allah u naxariisto dhamaantood culimada gobolkan ka timiday ee diinta ummadda gaarsiisay waxa kale oo walaalayaal aan qirsanahay ku qabweynahay oo sharaf ah in gobolkani yahay gobolkii ugu horeeyay ee laga bilaabo xadaaradda iyo waxbarashada casriga ah ee dhulka Soomaalida ka bilaabantay waxaan ka hadlayaa u jeedaa waxa weeye dugsigii Camuud ee ka bilaabmay gobolkan waxa kale oo iyaduna xusid mudan inuu gobolkani yahay gobolkii ay ka bilaabantay waxbarashada sare ee Soomaaliland oo aan uga jeedo jaamacadda Camuud marka aan gobolkan sheegayno waxaanan iloobi karayn kaalintii ay carabtii reer Boorama ku lahaayeen yagleelkii asaaskii magaalada Boorama iyo horumarkii ka dhacay dhulkan gaar ahaan dhinaca ganacsiga iyo waxbarashada gobolkan sharafta leh wuxuu ahaa gobolkii aasaasay
Somaliland sidoo uu aasaasayna waxa kamid ah inuu ahaa gobolkii ugu horeeyay ee lagu heshiiyay gobolkii lagu qoray axda qarameedka gobolkii lagu sameeyay calanka Somaliland iyo heesta calanka gobolkani waa gobolka ugu horeeya xagga samafalka iyo ururada tadawuca wuxuu ahaa gobolkii ugu horeeyay ee laga bilaabo iska wuxuu qabso kaasoo ahayd degmada Boon oo aanu ka soo jeedo gobolkani inuu gobolkii samafalka yahay waxa tusaale u ah ururo fara badan oo samafala oo ka hana qaaday gobolkan waxaan tusaale u soo qaadanaynaa ururkii la oran jiray Awdal Jaarati ururka Awdal Jaarati wuxuu ahaa ururkii waxbarashada ka bilaabay dhulka Somaliland oo dhan waqti dhibaatooyin ay ka jireen geygeena ururada kale xusida mudan waxa kamid ah ururkii Iqra ee waxbarashada isaguna kor u qaaday ururka Amoud Foundation ururka horumarinta bariga Awdal iyo ururadii dhalinyarta ee kamid ahaan jiray ee ay kamid ahaayeen Akaro Says Moonlight iyo Ayoda iyo kuwa kale fara badan gobolkan aanu sharaxanahay Awdal waa gobolkii bilaabay ciyaaraha sayliciga isla markaana laga bilaabay fanka casriga ah oo ay tusaale u tahay Cabdisinimo iyo Khadiija Balgu walaalayaal saaxiibayaal waxaan u sharaxanahay gobolka aqoonta iyo soo dhaweynta waxaan u sharaxanahay gobol Ilaahay ku manaystay khayraadka badda khayraadka xoolaha macdanta beeraha dhulka waa meel dalxiiska ku wanaagsan inkastoo aan aad looga faa'iideysan waxaan u mahadnaqayaa una ducaynayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay taariikhda mugga leh iyo horumarka gobolka ka dhacay waxaan ku dadaalayaa qaybtayda inaan aniguna wax ku sii daro horumarkaas inkastoo ay jiraan caqabado fara badan oo ay tahay inaan qirno oo ay tahay inaan ka baxno haddana walaalayaal waxaan aaminsanahay in wax badan la qabsaday walaalayaal saaxiibayaal haddii aan ku guuleysto tartankan insha Allah tacaala waan ku guuleysane waxaan fulin doonaa ballantaasoo ah inaan si sharaf leh inigu matalo golaha wakiilada ee Somaliland inaan ilaaliyo magacan aan waanahay ee ah murashax u taagan gobolka Awdal ugu dambeyntii saaxiibayaal walaalayaal waxaan iniga codsanayaa ducadiina waxa kale oo iniga codsanayaa codkiina iyo wax kasta oo aad igu taageeri kartaan waa walaalkiin Mahdi Cumar Sheekh Mahdi Maqtal wabillahi tawfiiq assalamu alaykum